سلام كلجين وحن كل سلامنا مع ربنا يبدباديهنا عيسى مسيح soo dhawaada oo ku soo dhawaada Soomaali Christian TV waxaanu nahay lamaanihi ugu jeclaadeen ex muslimka ee faafiya masiixiyada ka shafana qalaad kasta haddaan ugu cusubtahay fadlan subscribe ku samee YouTube-keena oo ku soo bir bahada Soomaali Christian TV waxaanu nahay bah aad iyo badan idin jecel oo mar walba jecelka Ilaahay idin soo gudbiyo waaniga Ashina Gaabo iyo xaaskayga Shani Gaabo soo dhawaada dhamaantiinba waxa barnaamijkeena ku saabsan yahay maanta xiriirka shakhsi ahaaneed ee Ilaah waaw waxaan Ilaahay noogu baryayaa in indhaha qalbideen la nuuriyo saan u ogaana waxay tahay rajada yaristiisa amiin ya shaniya dad badan way og yihiin ma haystaan xiriir ay Ilaahay la leeyihiin ma haystaan anaga ma haysan jirin waxay aaminsan yihiin ayaga inay meel hoose joogaan Ilaahna uu meel ka koreeyo joogo wax xiriir ah u dhaxay absolute aysan jirin waxay aaminsan yihiin ayaga adoome inay yihiin asagana uu yahay master ka sareeya ayaga mar walba dhibka marka waxaan tan ku dabaqayaa kaliya waxa waay fiir kala duwanaanshaha marka masaajidka anaga aan joogi jiray markaan ku jiray marka soo gashid masaajidka waa ina qalbi qulubsanaata waa ina hoos fiirisaa waa ina dhinacyadaada fiirinin waa ina ma aragtay adi dhanba ahaata qof ma aragtay dulaysan waaw markaan murugaysan marka kaniisada soo gashidna waxa arkaysaa dadkii inay faraxsan yihiin dadkii inay toosan yihiin dadkii inay ma aragtay farax oo ayaga is habeynayaan oo Ilaah amaanayaan oo ma aragtay farxada ku jirta marka taasa waxay cadeynaysaa oo kaliya ma aragtay xiriirka shakhsiyadeed ee dadkan ila leeyihiin Ilaah iyo kuwan kale kan ila leeyihiin inay yihiin wax kala duwan kuwan waa xiriir bal leeyihiin Ilaah laakiin kuwan xiriir lama laha صح kuwan waa la adoonsaday adooma isku aamineen ma la adoonsan of course laakiin ayaga isku aaminay inay adooma yihiin waa loo bixiyay ya adoonkana boqorku ma soo dhawaan karo laakiin kuwa xiriiran leenahay dhahay Ilaah waa kuwa xiriir shakhsiyadeed leh sida caruur iyo aabood oo kale ya boqorka ilmihiisa oo kale xiriir toosan u leeyihiin ee mar walba wada joogan waxa ogaataa labada qof oo xiriir kale waa laba qof oo isku dhow waa laba qof oo iska warhaysa laba qof oo isla socota laba qof oo maartay isjecel laba qof oo maartay isdanaynaysa inay yihiin laakiin haddaan xiriir jirin meeshaas waxa waaye laba group oo kala duwan waaye iyo oo isdhibaayo oo xumaan ay ka wada dhaxayso kulligoodba marka waxaan ka bilaabaynaa marka hore inaan aqrino kitaabka quduuska saa u ogaataan annaga haddaan masiixiyiin xiriir shakhsiyadeed Ilaahayna la leenahay صح waxaan rabaa wax yar inaan ku daba daro koo markii ugu horeysay Ilaah uu abuuray qorshuhu noo abuurtay ayaaba waxay ahayd ba Ilaah horta jacayl uu noo qabo argiisu naga abuuray ka bacdi aadam iyo xaawo markuu abuuray wuxuu ku waxay joogeen meel dhahay beerta Eden ayay joogeen beertaas wax walba yaal Ilaahna xiriir toos la lahayd Ilaah codkiisa maqli jireen Ilaah wuu la hadli jiray Ilaah wuxuu lahaa صاحب والها أبو وها يجن المهيسي هاين إله حرير كسفي عن الهاين أو قرشي وجهريب وها إله إنه حرير توس ومدي سلية شو أيوه حسي كلي حلقة إنه حرير قانون كهديئة جيت كعنينا وحول بعد نسميه جيت كسجع عنتان ولمن إنسان عم حواي وكل لمننا مركه هذا الإله مركه جبيان شيطان دوات قانون شيء كذا هذا لسعتين شيطان أي أبيسي صور حق لما مركزه محيته yiri Ilaah baa noqonaysiinba cuna geedka hayelina warkiisa way iska ayagana sidii yeelan shaydaanka warkiisa maqlinta Ilaah warkiisa maqlaayeen ka bacdi markay cuneen ayaaba xiriirkii jabayba because markaas waxa arkeen inay qaawan yihiin dhar xitaa maqan dambigooda ayaa wuxuu tusay inay qaawan yihiin dambigooda u muuqday ka bacdi waxay galeen dhuumasho iyagii Ilaah waxa kala dhex galay buur wasakh ah oo dambi ah marka Ilaahay jacayl uu noo qabay uu noo abuurtay oo annagina wasakhdan dhex timid haddana Ilaahay wuxuu sameeyay qorsho si uu nagu soo celiyo xiriirkii hore ee aadam iyo xaawo uu la lahaa xiriirkii hore ee jannadii inuu nagu celiyo ayuu rabaa maanta ilmo yar oo dhashay hadduu kaalumo ama uu kugu noqdo caasi uu guriga ka cararo waalid kasta waxaa aaminsan hadda waalid fiican tahay inaa cunugaaga raadinaysa inaad dhehaysa wiilkaygii gabadhaydii baa iga maqan aad dhehaysa oo doonaysa Ilaah qorshe kaloo noo sameeyay aadamkii hore ayaa caasiyay aadam kale ayaa yimid waa hadalka Ilaah nool oo Ciise Masiix weeyaan Ciise Masiix waa noo dhintay oo dhimashada ka sar kacay isaga markuu aan aqbalnayna waxa soo noqday xiriirkii ugu horeeyay ee maxay tahay qorshihii Ilaah ba ahaa Ilaah umadiisa ma ay Ilaah aamusan oo dadka intuu abuurtay halka iska dhigay yiri adoomaad tihiin anaga Ilaah maxaan qaban karnaa qof Ilaah u adeega ma jiro maanta dadka marka muslimka aan ciidaa soo salaad xumlayna Ilaah ugu adeegayaan aawi bireedan sujuuday Ilaah waxaan ku tari kara ma leh waxaan ka dhimi karana ma laha wuxuu uga baahan yahayna ma laha anaga joogsi la'aan u tukanaa waxaan ka mahad celinaa wuxuu yahay Ilaah haddaan amaanayna waxaan ku amaanaa kuwii yahay sheegnaa waa intaas oo kaliya waayo nafteena
ayaa waxay u baahan tahay ilaah la'aantiisa nolol ma haysano xiriirka la'aantiisana waxba fiican ma aha qalbigeenaaba jabanba qalbigeena wuxuu ku yaal hool oo wadnaheena wuxuu u baahan yahay jacaylka ilaahay qof kastoo binaadan adduunkan joogshiino wuxuu leeyahay waxaa naga maqan jacayl buu raadina waxaa naga maqan ba loo faala lahaa waa jacayl bay raadiyaan binaadan kasta uu jecel yahay la jeclaado jacaylka ugu weyn oo shuruud la'aanna waxaa ka helaysid waxaa waaye maxay ahayd ilaahay waayo ilaahay ayaa wadnahaaga meeshaas jacaylkaas wadnahaas markaa ilaahay ku xirtid jacaylkaaga wuu buuxsamaya xiriir toosaan helaysaa marka qorshihii hore oo aadami xaawo ahaa markay jebiyeen qorshihii cusub ayaa yimid oo ciise masiixo markii la aamino kulligeen aan noqonayn xiriirkii soo noqonay xiriirka markii saas ku soo noqonay marka ayadda noo akhriya ayaddu akhrinaya waxaan ku akhrinayaa ayadda magaca rabbiga waxaana cutub koowaad ayadda 12 ilaa 3 waxaa ku qoran laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay ku noqdo amar ay caruurta ilaahay ay ku noqdaan kuwaasna waa kuwa magaciisa rumaysay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonista jirka ama dad doonistiisa laakiin waxay ka dhasheen ilaah bay ka dhasheen ayadan waxay cadeynaysaa kuwa anaga nahay waxa amar noo siiyey amarkana sidaan ku helnay ayaa cadeynaysaa laakiin ka hor waxa rabaan idin sheego annaga bini aadana nahay waxa ilaah uu noo sameeyay af wuxuu noo sameeyay indho wuxuu noo sameeyay dhigo iyo wuxuu noo sameeyay xubnooyin kale afka wuxuu noogu sameeyay isaga inaan kula hadalno kow dhigaha wuxuu noogu sameeyay isaga inaan ku maqalno araggana wuxuu noogu sameeyay in isaga mucjisooyinkiisa iyo waxyaabaha isaga wanaagsan oo weyn umadiisa waxna inaan aragno marka taasaa muujinaysa in ilaah ujeedada uu naga lahaa inay ahayd inuu xiriir nala yeesho marka qof haddaa xiriir la yeelanaysid qof hartaa inaad la xiriirtid ma la hadli kartid qofkii waa dhibaato kuma maqlaayo qofkii xiriir ma jiraayo marka xiriirka waxa waa ku salgaraysan yahay oo ogaanaysaa ujeedada ugu horeysa bini aadamka ilaah markuu abuuray ahayd xiriir inuu la yeesho oo taasna wuxuu ku sheegayaa bini aadamka inay yihiin waxyaabaha ugu wanaagsan oo asaga uu sameeyay inuu bini aadan uu yahay wuxuuna rabaa xiriir inuu nala yeesho laakiin waana la qiyaamay oo nala qasaariyey waxaana laga dhigay kuwa aad uga fog ilaah oo ilaah xiriir dhan uu la yeelan kareeninba qaara waxay ku leeyihiin ilaah ma maqashaaha ma adiga maxaa la dhahaa nebi ah see ku maqlaysaa ilaah ma adaa ilaah la hadli kara see ku tahay nebi maanta dad qaas ah ay rabaa inay maaragtay ay siiyaan maaragtay ammaan dadka inta kaleetana ay lugooyaan waayo intaanoo dad ah ilaah baa wada abuuray kulligoodba dhigaha iyo afka iyo indhaha asaa u sameeyey si xiriir toosana uu la yeesho marka waxaa ogaataan amarka aan helna waxa waaye markaan rumaysanay sheekada shaan idinkaga soo sheekaynaysay in maaragtay ciise masiix markuu imaaday ay noqotay in la rumaysto waayo waxa waa isku soo celintii xiriirkii dib loo soo celinayo kii walba oo rumaystaa ciise masiix xiriirkii aadam iyo xaawo ila lahayn ilaah dib ayuu ugu soo noqonayaa oo xiriirkii aad u wanaagsanaa ahaa oo ku dhisnaa ammaanta iyo jacaylka ilaah marka waxaan xuquuq u yeelanay ama amar naloo siiyey inaan noqono caruurta ilaah aamiin marka aniga waageygii hore waxaan ahaan jiray oo lagu sheegi jiray addoon inaa ahaa sax laakiin hadda waa xorriyad baan helay adna idaawanaayo haddii hadda lagugu sheegayo addoon ilaah uma tihid waayo ilaah wax uu qabatid ma laha wax walba asaa kuu qabta waxaa u ahaan kartaa caruurtiisa waxaa kaa xiga oo keliya inaa aqbashid ereygiisa iyo hadiidii asaga ugu soo diray oo ah ciise masiix haddaa aqbasho waxaa adna xuquuq yeelanaysaa caruurta ilaah inaa ka mid noqotid kamaadan dhalanin xagga jirka kamaadan dhalanin waxyaabaha dhiigga laakiin xagga ilaah ayay ka ahaadeen waxaa ogaataa waa rumaysad bay ku imaanaysaa waayo hadalka si ku qoranya waa arkaysaa kii walba oo rumaystaa isaga waa ciise masiixe wuxuu amar u yeeshay inuu noqdo caruurtii ilaah aniga waxaan ahay wiilkii ilaah ama inankii ilaah shaaniyi waa gabadhii ilaah waa kulligeen waxaan nahay caruurtii ilaah baan nahay adna gabadhii ilaah ama wiilkii ilaah baa sidaa ku noqonaysaa haddii aad rumaysato markaas maxaa imaanayana xiriir baa imaanayo oo wiil iyo gabar ama gabar iyo aabaheed oo kaleeta ah ayaa imaanayo kaasoo ku dhisan jaceyl ku dhisan ogaaw inuu madaxa kaa salaaxay uu ku leeyahay waa gabadhaydii wanaagsanayd oo aan ku faraxsanahay waa wiilkaygii aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay ayuu sidaa ku leeyahay marka ilaahaas waxa waa adigu ku qiimaynaya qiimo ku siinaya xataa inaad ogaatid asaga in adiga uu ka abuurto marka horeba muuqaalkiisa uu ka abuurto jaceyl uu ku qabo aawadeed uuna rabaa haddana xiriirkiisii lumay inuu dib u soo laabto wuxuuna ku soo noqonayaa inaad rumaysato ciise masiix si aad u noqotid caruurta ilaah صح markaa maqashid caruurta ilaahayna ha soo boodin hadeen subxaanallah hala soo boodin annaga ma dhihin ilaahay naaga ma aroosoy ilmana ma ka dhalin waxaas ma dhihin annaga saas ma aha idinka mar walba markay maqlaan caruurta ilaahay waxa malaya wax is arooso ilma iska dhalay saas ma aha doonista dadka ma aha la isku taga ma aha la dhahay idinka waxay sitiin naaqatul hashi allah haysni allah ma geelo aroose waa maya saas ma aha
الله ناقة الله دا أقولشين هالشي الله دا أقولشين عيسى ابن الله إنه أقلاده عيسى ويلك إله إنه أقلاده أنا جنا عرورتي بقى نقولنا قبله يويلش إله يا نقولنا وحق الشركة معها اسكت جدا معها إله ناقة مع عروس إلما مكان له مركان اسكت لي من أيام وحنقولنا عرورتي إلهي في ما تدي لوجي بقر لبوي لوكانو ولا مت كم إذا ويل كي ونقولنا adoption ما عرفت أنا كرسنا وصحيحه midna oo loogu saxiixa adoonkiisa inuu yahay kan adoonka banaanka la fariisinaya cuntadii soo hartaa la siinaya dhaxalka aabaha wuxuu kuma laha boqorkan baaburkiisa ma ka xaysan karo wax uu meesha soo fariisan istaag marka la istaaga marka la fariisan banaanka soo jooga kii laakiin uu korsaday oo uu u saxiixay inuu wiilkiisa noqonayo ama gabadhiisa noqonayso guriga alkeena ilmihii la seexanaa cuntadii la cunaa kursiga boqorka la fariisanaa dhabta uga fariisanaa wiilkaygii uu leeyahay hada ma dhashay jirka ani jirka wuxuu leeyahay ama dhalan laakiin cunugayga aan korsado waay dhaxalkiisa dhan uu leeyahay magaciisu qaadanaya wax walba uu gurigan ninkan leeyahay boqorkan uu ka tagay cunugaani isagu isla leeyahay dhaxal tooyo u helayaan ilaahay wuxuu leeyahay sidaas oo kaleeto adoonka ka banaanka joogo waa kan dambiga ku jiro waa adoon wuxuu yahay dambiga u yahay wuu ka fog yahay ilaahay gurigii ma joogo ilaahna uma ogolo inuu aabo camal u noqdo oo isku dhiibo fiir anaga dhan ilaahana abuurtay ilaah muxuu uga baahan inuu xaroos wax dhalo asaabana abuuray anaga dhan bini aadan isaga abuurtay aan nahay maadaama uu na abuurtay wuxuu leeyahay sida adoon ha igu imaanin adoonka waan ka carada ku jira ee dambiga ku jira ee iga fog kaas waay kan iga fog laakiin idinka waxaad tihiin close waxaad tihiin dadkayga familkayga kuwa ii dhow ayaa tihiin u leeyahay kuwa caruurteeda noqonaysa gabdhahaygii wiilasheeda noqonaysa anigana aabihiina noqonaysa saas waxaan ugu duceysanaa ciise masiix salaaduna bare maalba ku tukanayna waxaa laga bilaabaa aabaha iyaga jannada ku jiro magacaaga quduus ahaado aabaha iyaga jannada ku jiro aabaha nafta waaye aabaha kiina abuurta kan nafteena dhan gacantiisa ku haayo waaye maanta qof markaa arti boqoroo aad dhehaysaa boqoroo ugu yeeraysaa aabahaagii maxay ahayd nafta dhan adiga lahaa oo maantana ku yiri caruurteedii aa noqota aabo متيد أدون متيد محيط مثل يسها هوسلو كعي متيد متفوق أو محيط دم بكل حجره مركا أنت صوت نسيلوه لكرا وأنا قوان جرتا وأنا قلبي كرم استعف كنا كقرتا عيسى مسيح إنه يها ربي قاعد بتبادي هذا هدي حاطة سلاس دعاء نقدر بآخره وحتى ربي وإلهي ما أنت وكوتو بتكينا وحن قلبي كرم استعف كنا كقرنا عيسى مسيح ونتا ربي قاعد بتبادي هذا ربي عيسى ruuxaaga quduuska hay hogaamiye maanta laga bilaabay ilaa iyo weligay nolosheeda intaan waxaan ku duceysanaa magaca rabbigayga iyo badbaadiyahayga ciise masiix aameen ducada sidaa ku duceystay walaal nala soo xiriir nambarka halkan ku qoran nagala soo xiriir kuna soo dhawaa boqortooyada ilaah si aan kuu barno hadalka ilaaha nool ee kitaabka quduuska aanu kugu soo dhaweyno familka ilaah waayo go-aan wanaagsana gaartay marka waxaa haysataa amar ah ku noqoto caruurta ilaah waxaa haysataa maxay xiriirka tooska ah xiriirkii jabay ayaa soo noqday xiriir toosan ilaahay la leenahay ilaahay iyo annaga hadda ma kala fogin waaga hore ilaah waa nagu cabsiin jiray amal ilaahay qabriga kugu sugaa ilaahay ku cadaabaya ilaahay saan ku galay ilaahay waa dhaarsan yahay ilaahay dadka dhan wuxuu rabaa cadaabka inuu dambiga uga soo dhaqo inuu geeyo cadaabku ballan qaado inuu ka buuxiyo war waxaas ilaah runna ma ahayn wuxuu ahaa ilaah quraafaad oo nagala dhaadhiciyo nagula cabsiina xuux nagula dhahay heer waxaa la gaaray dadka inaa hadda qabriga inaa af carabi sii bartaan saddexdii su-aal ama ay dhahaan ilaa qabriyaa nala geeni gabadha fanaanadii geedaha korkooda halaysaa maxa waxaasoo dhan cabsidaasoo dhan ma jirto ilaaha runta annaga noogulama turjumaayo afkeena hooyaan kula hadleynaa ilaaha luuqad kasta wuu yaqaanaa ilaah wuxuu yidhi caruurteeda aa noqonaysaan ilaah markaa u toobadkeenta xiriir toosaan leen aabba quduus aan leeh maanta dhib hadduu haysta isagaan u geynaa farxad haddaan haysta isagaan u geynaa haddii aan wax ka cabsanaa isagaan ka magan galaa isagaa wax walba ii qabanaya isagaa u ordeyna ilaa hadda annaga cabsi uguma adeegno jacaylaan ugu adeegnaa waayo isagaa jacayl ka buuxaa asaa wuxuu dhahaa ha cabsanina shiina kitaabka saas markaa u kala gadisa ha cabsanina iyo farxa reereeyaa ku jirto ka waran farxa oo reereeya oo ha cabsanina naleeyahay ilmo yar maanta ilmahayga maanta haddaan arka iyagoo ooynaa ii imaadaan maantana iyagoo faraxsanoo boodbood hadday imaadaan kay jeclahay markay faraxsan yihiin ilmahayga ha ooynina leeya maama ha ooynina annaga markii meeshaas nalgeeyo masaajidka nalgeeyo maxaa arki jirtay dadka waa lawada murugaysan wataa noo sheegaysay waa lawada murugaysan waa lawada ooynaya cadaab qabriga laga cabsana waxaan dhagaysan jiray waxyaalaha islaamka ku saabsan markaa muslimka ahaa runtii shiiqa hadduu hadda laba ere markuu sheego oohin cadaabkii iyo waxbuu sheegaya laakiin waxaa lagu leeyahay nimcada ilaahay dadka waxay u kaxaysaa inay toobad keenaan ka waran maanta haddaan kaaga sheekay ilaahay suu kuu jecel yahay janno inuu kaaga yeeray inuu kuu dhaarsaneen inuun rabin inuu foorno kugu guro ya ilmahaaga maanta haddii mid kaa tago
waxaa leedahay maxay ahayd waxaan foorna u diyaarsaday inaan gubaan rabaa cunugaas kugu soo noqonaa naxdin waay laakiin haddii la dhaho aabbaha iyo hooyada way oynayaan waa ku jecel yihiin guriga ku diyaan wax walba ku diyaan cunta ku diyaan kaa dhibkan ka soo baxa wuu soo noqonaa nimcada ilaahay waxay noo kaxaysaa badbaaday noo kaxaysaa laakiin idinka waxaa artiin cabsi iyo ciqaab aad dadka ku haysiin hadhowna ilaaha kasii fogayseenba ilaahu ma soo dhawaana laakiin way kasii fogaanayaan way kasii cararayaan waayo waxaa u sheegteen ilaah xasid ahoo u dhaarsan oo xiriir dhan maba jiro marka horeba shiiqaa noo dhexeeya aniga isaga marka horeba isma afnaqaana aniga isaga shiiqaana wuxuu ii sheegayaa aan ka dhegeysanaya suu kugu turjumay ahaanay haddana mararka qaarna maba la ogolo inuu waxyaalaha qaar turjumo hadduu turjumo isagaa la bursanaya lala dagaalama marka wuxuu ii sheeg shiiq ilaah layga turjumaya ilaah ma ahaba xiriirna ma lihin isma afnaqaano af kaluu ku hadlaayaa ha ila hadlinuu ku yiri mana naqaano yiri ninkii noo keenay wuxuu yiri aniga idinka wax nagula sameynaa ma naqaano iimayl u socono ma naqaano wax nagula sameynaa ma naqaano marka kaas maaha ilaaha qalaadka kan ka hadlayno waa ilaaha runta ilaaha ibraahim isxaaq iyo yacquub waa ilaaha idin jecel oo annaga dhan jecel arigiisa naga abuurto waa ilaaha awoodda u leh dembigaaga dhan sas inuu kaaga nadiifiyo caruurtiisa kaa dhigto marka aqbashid hadiyadiisa tigidkii jannada lagu soo geli lahaa waa ciise masiix qofkii waxaas oo aqbalo maanta wuxuu qaatay hadiyadii jannadu helay adaa isxaan isku samaysa haddaad diidana jannadii aad diidda xooggeegaan ku imaanaa feeraan ku imaanaa addoona ahaanaa addoonka maantana hadduu habeenii maalin shaqaynayo mushaaradiisa xitaa ma uu goynaysa xitaa maxay wax yar ugu tago uu cunto ku cuno iska daaya boqorka qolkiisa ma geli karo mana arki karo laakiin ilaahay boqorada ilaaha runta ah boqorka runta ah kan naftaada abuuray nafteeda abuurtay kan ku jecel annagana jecel jaceylkiisuu naga buuxinaya kaas jaceylkiisa yaa inta u fadhinaa inaa idiin soo gudbino mar walba jaceylka uu ilaah idin qabo ee weyn ee baaxadda lahayn ee meel buuxisa meel kasta buux dhaafinaysa meel qaada lahayn ayaan idiin soo gudbinaa walaalayaal annagana aad iyo aad badan ayaa idin jecelna familkeena haddaan nahay maxay family gaabo aad badan ayaa idin jecelna ummadeena dhan soomaalida dhan waxaan rabnaa kulli shanta soomaaliya inay runta wada gartaan ilaahayaa rabo inay runta gartaan ilaah toos xiriir la yeeshaan walaalayaalo la heshiiye ilaah masiixuu nagula heshiiye masiixa aqbala jannada noo raaca rabbiga mahadle marka ilaaheen wuxuu rabaa inaan maaragtay lahaano xiriir isaga aan la lahaano xiriirkaas waxa waaye waa xiriir aad iyo aad u wanaagsan oo annagana aan dhiirigelinayno dadku inay ilaah xiriir la yeeshaan xiriir la'aanta ilaah waa laga fogaanaya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku yiraahdaan xiriirka ilaah muxuu ku imaan karaa xiriirka ilaah wuxuu ku imaanayaa hadiyadda asaga uu nasiy inaan qaadanno wuxuu dib ugu soo noqonayaa inaan rumaysanno ciise masiix kii isaga rumaystaana wuxuu xaq u yeeshay inuu caruurtii ilaah noqdo xiriirkii meeshaas u imaanaya markaas faa'iidada aan ku qabno waxaa marka intaan dunida joogno waxaan ahaanaynaa caruurtiisa aad u dhow oo waxyaabaha aan weydiisana kalsooni aan ku weydiisanay oo na siinayo aakhirana ballanqaadkiisii ayuu na siiyey waayo kuwiisaana boqortooyadii aan dhex joognaaba already boqortooyadiiaba maaragtay joogiddeeda inta noogu bilaabatay aakhira markaan tagnana isagii na badbaadiyey isagii na abuuray oo na badbaadiyey ayaa isaga la joogaynaa marka xiriirka wuxuu ku fiican yahay waa xiriir inta keliya yaalla maaha waa xiriir ilaa abadiyan ahaanayo waayo ilaahagii baa baratay ilaahagii baa ku xiran tahay ilaaha bay gacanta haysataa ilaaha baa ku dhegan tahay kamana fuqayso weligaa isagaa laftigaa wuxuu yidhi anigana weligay kaama tegaayo weligayna ku dayrin maayo ayaa rabbiga qaadirkaa leeyahay marka qof maaragtay caruurtiisa meel cidla uu tagaayo malaha haddii ay maaragtay safar la aadayo caruurtiisa waa uu kaxaysanaya waa sida oo kale ruuxadda quduuska ilaah uu na siiyey ayaa anagana nagu sii haynaysa meesha anaga aan joogno isagana wuxuu yidhi aniga kaama tegaayo kumana dayrinayo aakhirana waxaan tegaynaa jannadiisa waayo waxaanu nahay kuwiisa sida ku qoran korintiyaaniska labaad cutubka lixaad aayadda 18 waxay leedahay waxaan idiin ahaan doonaa aabe oo idinkuna waxay ahaan doontaa wiilal iyo gabdha ayuu rabbiga qaadirka ah leeyahay ka waran haddii ilaahan weyn qaadirka ah oo kugu yeeraayo gabadheedii baa tahay oo kugu yeeraayo wiilkaygii baa tahay wax ka wanaagsan ma jirtana meel kale oo laga qaban karo oo maaragtay arrinka waa iska dhammaadayba sidaa awadeed waxaan leenahay walaalayaal ilaah wuxuu rabaa xiriirkeenna inuu wanaagsanaado xiriir maaragtay toosan uu nala yeesho haddii aadan xiriir la lahayn ilaah hadda xiriir waa la yeelan kartaa waxaana dhehi kartaa waan toobad keenayaa afkaan ka qarnaya qalbigan ka rumaysanaya in ciise masiix uu yahay rabbigayga badbaadiyahayga waayo waa isaga isku xiraha bini aadanka iyo ilaah isaga isku xira waa hadalkii ilaah rumaysadkaasna keenayo kii isaga rumaystaa wuxuu lahaan doonaa nolosha weligeeda ah marka xiriirka dunidana waa noo suurta gashay ilaah wuxuu noo ahaanaya aabe sida haddayba aan idha markaan tukanayno anaga aan leenahay aabbaha iyaga jannada ku jirow marka aniga aan idhaahdo aabbow waxaan dareemayaa naxariis waxaan dareemayaa isku soo dhawaansho waxaan dareemayaa maaragtay in lala joogo
waxaan dareemayaa ilaahayga aabbe inuu ii yahayo aabbahaygana waxba iga hagranaynin wuu ii aqbalaya of course kalsooni intaan ku imaado ayaan maaragtay kalsooni kaga soo tagaya meesha anoo huba in wixii aan weydiistay uu ii ahaanayo waxyaabaha qaarkoodna haddii ii wanaagsanayn inuu iga leexinayo waxyaabo kaleetana inuu ii diyaarinayo anay kalsooniyaan ku qabaa markaas iyada waayo kan xiriir kula leh waa kan ku maqla waa kan ku maaragtay ku arka waa kan ku dhowra xiriir ma dhihi kartid waa kan kula joogaba joogitaankiisana weligeed ayay ahaanaysaa weligeedna kaama fogaanayso sidaasoo mar walba uu kula joogaya صح رومان cutubka 8 aayadda 47 waxaan ku qoran in alle intii ruuxa ilaah hogaamiyo waa caruurta ilaahay waayo ma idin helin ruuxa adoonnimada inaad mar kala cabsataan laakiinse waxaa hesheen ruuxa caruur idinka dhigay kan aynu ugu qaylin aabo ruuxa qudhiisa wuu marqaati furaa oo wuxuu ruuxeena u sheegaa inaynu inagu nahay caruurta ilaahay oo haddaynu caruurta nahay haddaba waxaynu nahay kuwa wax dhaxla kuwa ilaah dhaxla oo masiix wax la dhaxla haddii aynu isaga la xanuunsano ilaynala amaano isaga aamen aabow ayaa ugu yeersan ruuxa quduuska nagu shubmaayo shiina waxaan jeclahay mar aayadahan uu rabbiga kaala dhexadlo waxay jirtay maaragtay anigoo muslim ka soo baxay oo aan noqday masiixi ayaa waxa waaye ugu adkaatay aabow inaan ilaah idhaahdo ugu adkaatay waayo waxaa liigu soo koriyey ilaah wax ma dhalo ilaah lama dhalo ilaah cidna aabbo uma aha waxyaabo badana lagaa soo dhaadhicinaya oo wixii lagaa soo dhaadhiciyey waxay ka mid noqonayaan noloshaada ka mid noqonaya saasaa ku koraysaa maskaxdaadana waxaas ku beegma ku aruursamayo marka bal u fiirsa laakiin sida qaladka uu jiro meeshan ilaahayna nabiyadii hore oo dhanba waxay dhihi jireen aabbow aabbo ay ugu yeeri jireen mid keliya imaaday oo ka duwan kuwa kale oo dhan oo dhahayo diidaya aabba ma lahaan karaan aabbana ma bijiri karaba aabbana cid ilaah uma aha inuu dhaho waayo wuxuu diidan yahay ilaah ibraahim isxaaq iyo yacquub nebiyadii oo dhanna ay dhihi jireen miyaanan hal ilaah lahayn miyaanan ilaah kulligeen aabbo noo wada ahayn intuu jibiyey arrinkaas ayuu wuxuu yidhi ilaah ma jiro aan ahayn allah ahayn kii oo dhan intuu kasoo tegey oo tu kala cusub dadka u keenay markaasuu wuxuu leeyahay cid aabba idiin ahaan karta ma laha haddaa sidaa tidhaahdaana ogaada cabsida imaanaysa shirkiyaa ku jirtaa waa lagu ciqaabaya qofkii oo sidaa kusoo koray markuu masiixi noqdo oo lagu yiraahdo markaan waxa ku duceystaa sidaan aabbaha iyaga jannada ku jiro dheh waxay ugu adkaatay aabbow inaan idhaahda ugu adkaatay waayo cabsiya igu jirtay wixii lagu soo shubay igu jiray fikir iyo maarata waxbarasho qaldana lagu soo shubay tiise u tirtiranto waxaan dul imaaday aayaddan dul imaaday aayaddan markaan aqriyey oo ilaah waxdiisa quduuska dul saaray ayaa wuxuu leeyahay ruuxa qudhiisa wuu marqaati furaa wuxuuna ruuxeena u sheegaa inaynu inagu nahay caruurtii ilaah markaas maxay noqonaynaa mataqaanaa inaan ku dhawaaqno oo nidhaahno aabbow waayo aayadda sida ugu horeysa ay leedahay waxa waaye in alla inta ruuxadda ilaah hogaamisa waa caruurta ilaah waayo maydan helin ruuxa addoonnimada inaad cabsataan addoonnimadii dhan baa xag iska tuuray waayo addoonnimada waxay keenaysaa cabsi shani addoonnimada waxay keenaysaa cabsi waayo addoonka waxaa la yidhahdaa waa kan dembiga addoon u ah dembi qof ku jirin cabsi la ku jiraa qof fiira adi sharciga oo magaaladan ama sharciga waddankan haddaad jibisid waxa ogtahay in laga tago imaan doono dhuumashaa ku jiraysaa askari goorma ku qabanaya waxa qofka qaladka ku jira wuu og yahay cabsiga ku jira marka addoonkii cabsiga ku jira laakiin ilaah wuxuu leeyahay ana idin ma siinin ruuxadda addoonnimada inaa ruuxa addoonnimada inaa markala cabsataan marka walaalahaygow ha isku shaabadaynina addoommo inaa ilaah u tihiin ee ahaada isku shaabadeeya inaa caruur u tihiin ilaah u tihiin waayo caruurta iyo addoonka waa ay kala duwan yihiin boqorka caruurtiisa iyo boqorka addoommadiisa waa ay kala duwan yihiin iyadoo ilaah cidna uusan addoonsanin addoonna u ahayn waayo laakiin waa fikradna laga dhaadhiciy oo qaldan ilaah addoommo ma samaysanin ilaah bini aadan buu sameeyey kana sameeyey muuqaalkiisa ka sameeyey fikrad qaldanana laga dhaadhiciyey iyo waxyaabo qaldanana loo soo bandhigay oo anagana iska qaadanay oo aan idhahnaa aabbahay iyo awowgay baa aaminsanaa annagu waa iska aaminsanaanaya ma ka bixi karo waayo dadkaygo dhanaa wada ah wixii qaldan waa qaldan yihiin qaladkana ilaah ma ogola inaad ku dul socotid ilaah wuxuu leeyahay waxaad garan doontaa runtana waa idin xoreynaysaa ee walaalahaygow ilaah nama addoonsado addoonnimana nooguma taligelin wuxuu noogu talagalay inaan xiriir la yeelano asaga xiriir caruurnimo inaan la yeelano oo caruur aan ahano si aynaan mar dambe u baqanin bal fiir aayadaha qaybaha dambe waxa waa faa'iidada anaga aan leenahay haddaynu nahay caruurtii waxaanu nahay kuwa wax dhaxla kuwa ilaah dhaxla oo masiixa wax la dhaxla maxaa dhaxalkan la sheegaya marka
wax walbo ilaahay leeyahay ilaahay leeyahay oo dunida yaala adaa iska leh aakhirada jannadan aakhirada jannadii baa lagu sii ballan qaadayba wax ka wanaagsan ma jirtana waa taan idin sheegay xiriirka halkan uu ka bilaabanaya faa'iidaan ku qabanana waxay tahay inaan ogaano kuwa annaga aan nahay waxaanu nahay caruurtii ilaah baanu nahay caruurtii boqorka ayaanu nahay markaas ilaah annaga wuxuu nagu yeerayaa aabaan idin ahaan doonaa inuu yiraahdo idinkuna waxay ahaanaysaan caruurtayda wiilasheeda iyo gabdhahayga marka wax ka wanaagsan ma laha walaalahaygow ka toobad keena inaa addoomo sii ahaataan ka toobad keena xumaha ilaah u kaaleeya kan idinku yeeraaya inaa caruurtiisa aad noqotaan amar wuxuu ku siinayaa inaa caruurtiisa aad noqotaan haddii aad rumaysato isagana waa ereyga ilaah ciise masiix kii isaga rumaystaa xiriirkan wuu u suurtagelayaa halkan wixii ka dambeeyana waxa waaye ballanqaadkii jannadan waa ku yaalaa dunida intaa joogtayna waxyaabaa dhexlaysa waxyaabaha ilaah leeyahay oo dhan adaa iskale aakhirana waxyaabaha ilaah leeyahay oo jannadana adaa iskale waa run mahadsan shiino yoxanaha koowaad cutubka 3 aayadda 1 iyo 2 bal ogaada siduu yahay jacaylku aabuhu ina siiyey jacaylka maanta ilaahayga aan ka hadlaynay aabihii jacaylka badnaa bal ogaada ayaana leeyahay siduu yahay jacaylka aabuhu ina siiyey taasoo ah in laynoogu yeero caruurta ilaahay haleluuya oo saasaynu nahay sida aawadeed dunidu ina garan mayso maxaa yeelay isaga ma ay garan gacaliyaalo iminka waxaynu nahay caruurta ilaah oo weli waxaynu noqon doonaa lama muujinin laakiinse waxaynu ognahay in goortuu muuqdo in aynu noqon doono sidiisa oo kale waayo waynu arki doonaa isaga siduu yahay rabbi ciise masiix markuu soo muuqdo annagana waa arki doonaa sidiisoo kaleta baanu noqonaynaa waa arki doonaa siduu isaga yahay baan ahaanaynaa caruurtii ilaah baa tiinaa layidhi bal ogaada ayaana leeyahay siduu yahay jacaylka aabahaxaqiiqsan ah in laynagu yeero caruurta ilaahay way caddahay meeshan caruurta ilaahay ayaa nogula yeeray sida aawadeed dunidu garan maysa maxaa yeele isaguba ma ay garanayn gacaliyaalow iminka waxaynu nahay caruurta ilaahay qof kastoo masiix aaminsano caruurta ilaaha nahay addoonnimadii waa kasoo tagnay kasoo taga soomaaliye shanta soomaaliya meel walba joogtaan ilaaha runta wuxuu leeyahy waxaan rabaa inaa noqotaan caruurtayda inaa gabdhahaygii wiilasheeda noqotaan ma rabi inaa addoon noqotaan maxaase u qaban karnaa ilaahay caawi beri haddaan foorarsanno xitaa waxba uma qaban karno ilaah waxba uma qaban addoon waxaa la dhaha markaa adeegaysa adiga annagaaba naloo adeega wax nala siiya annagaaba ilaahay hadduu neeftan na siinin xitaa ma neefsan karno wax kasta oon samaynayo lixda lixaad iyo wax walba oon leenayo xidid kasta oo nagu yaalo wuxuu ku neefsana ku dhaqaaqayaa awoodda ilaaha iyo naxariista ilaah iyo jacaylka ilaah uu noo qabo maanta kan xun iyo kan fiicanba roobka iyo qoraxdu siiyaa malaayiin waxaa jirta ilaah baa aaminsanayn oo garanaynin ilaaha runta ah haddana kaa nolol fiican kaa caafimaad badan kaa qurux badan waayo maxay saas ku dhacday waayo ilaahay dadkiisa dhan jacaylkiisa ku abuurtay kulli wuxuu rabaa inay toobad keenaan wuu u sabraya wuuna sugayaa waayo wuxuu rabaa kulligood inay badbaadaan oo runta gartaan ee saas jannada ku yimaadaan aniga shiinaba hadda 20 sano ka hor annaga dad muslima ahayn maan aqoonin addooma ahayn dadaa maantadan badbaaday xal dadaa badbaaday daqiiqadan haddaa badbaadid adiga daqiiqad ka hor waxaa laga yaabaa in addoonnimo isku taqaan addoon ahayd daqiiqadan aa noqota caruurta ilaahay qof kasta waxaa kaa xigo keliya inaad toobad keentid waxay helaysaa hadiyadda ruuxa quduuska waxay helaysaa amar aa ku noqota caruurta ilaahay waxaa helaysaa wax kasta uu ilaahay leeyahay cirkiga dhulka iyo inta udhexaysaba ilaahay wax walbuu leeyahay waxaa u helaysaa hadiyad ahaan waayo dhaxaltooyaa ku helaysaan waayo waxaa aaminay rabbi ciise masiix rabbiga soo raaca si xiriir u heshaan dhaxalkana inaad halkaan ku heshaan aakhirna jannada u timaadaan marka waa arrin aad iyo aad wanaagsan cutub cashirkeenin intaan kusoo gabagabeynaynaa nimcada rabbigeena ciise masiix iyo jacaylka ilaah iyo weheltinimada ruuxa quduuska dhammaanteen hanaladu jirto intaas waxaan ku baryaynaa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska aad iyo aad badan ayaa idinkaga mahad celinaynaa sida aad noo daawateen waa inoo iyo cashirka ku xigo hadduu ilaah raali ka dhigo nabadda masiixa korkiina haato nabadee